Sierra Leoneans. madaxweyne Julius Madabio ayaa dibadbaxayaasha waxa uu ku eedeeyay in ay abuurayaan qalalaase lagu khalkhalgelinayo amniga dalka Sierra Leone. The full force of the law iyadoo la dhaqangelinayo sharciga waxaa lala xisaabtami doonaa kuwa isku dayay inay weeraraan oo ay dilaan ciidanka booliska waa kuwa la maalgeliyey oo abaabulan waa lala xisaabtami doonaa waxaa jiri doona baaritaan dhammaystiran oo ku aadan dhimashada dadka rayidka ee nafahooda ku waayay mudaharaadkan macna darada ah of ordinary citizens who lost their lives in this senseless violence. Sierra Leone waxay wajahaysaa mid ka mid ah mudaharaadyadii ugu xoogganaa in muddo ah. Dowladdu waxa ay ku eedeysay mucaaradka balse iyagu arrintani waa iska fogeeyeen waxaana ay tilmaameen in ay salka ku hayso siyaasad xumada dowladda ee dhinaca dhaqaalaha. It's been 4 years. 4 sano ayaa laga joogaa markii ay xilka qabteen laakiin waxay qabteen ma jiraan taasina cudurdaar ma noqon karto goobo badan oo ganacsi ayaa la xiray maadaama ay ciidamadu gaafureegayaan wadooyinka. bando 12 saac ayaa ka jira dalka oo dhan. dalka Sierra Leone ayaa la dhibaataysan sixir barar xooggan oo saameyn ku yeeshay nolosha dadweynaha iyadoo dadka intiisa badan ay noloshoodu hooseyso.